haddii aad rabto inaad guri ka iibsato xaafadda loo yaqaano Roseville waa the only video u baahan tahay maanta waxaan ka hadli doonaa xaafadan populationka dadka inta ku nool ka hadli doonaa average sale price ka hadli doonaa qiimaha guryaha ka joogan waxaan ka hadli doonaa dadka kireysto iyo dadka guryaha iskale inta yihiin waxaan ka hadli doonaa dadka kireysto lacagta ay bixiyaan dadka magaalada Roseville waxaan ka hadli doonaa new listingka guryaha suuqa soo galaan ka hadli doonaa guryaha suuqa intay ku dahayaan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa showing per listing oo ah guriga inta jeer oo la arkay inta la iibsan ka hor waxaan ka hadli doonaa pending properties guryaha pendingka oo inspection ka hadda maray waxaan ka hadli doonaa June closing June guryaha la gabagabeeyay ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano price by square footage ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano list to sale ratio guriga qiimaha lagu soo galiyay qiimaha suuqa ka baxay waxaan ka hadli doonaa iskuuladan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano amenities waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano economic and jobs waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano highwaysada maro si ay kugu fududaato meesha aad ka soo adeeganayso iyo hawlaha aad qabsanayso waxaan soo ka hadli doonaa laakiin haddaan ku cusub tahay marka wadana soo boqotay tahay magacayga waxa la yiraahdaa Daahir bulshada waxaan ka caawiyaa gurigooda iska sii gadaan guri cusub inay iibsadaan insha Allah iga soo qaabo website-kayga sahanrealtor.com waxaan la gareynay program aan bulshada kaga caawinayno gurigooda ku bixiyaan 5 sano ilaa 7 sano programkaasi waxa loo yaqaanaa the fast mortgage freedom soo dad badan ayaa isrisgaray waxaan qaban doonaa webinar June 26 ayaan qaban doonaa webinarkaasi haddii aan nagu soo biirin fadlan nagu soo biir ilaa 300 qof ayaan rajaynaynaa inay nagu soo biiraan maalintaasi dadkaas oo raadinaya inay gurigooda xorriyad helaan maanta haystaan guri 500 oo free and clear ah waxaan aadi kartaa website-ka loo yaqaano the faster mortgage freedom oo shashada ka arki doonto okay waan ku bilaabayaa soo waqtiga saa kaaga lumin saa arkaysan xaafadan waxaa la siiyay A+ usually waxaa la siiyay A to F la siiyay laakiin A baa la siiyay wax loo yaqaano gradingka soo arkaysa the reason loo siiyay A waxay tahay xaafadan iskuulada saa arkaysa public schools A ba ka haystaa housing waxay ka haystaa B ba ka haystaa good for families waxay ka haystaa A jobs ka shaqooyinka waxay ka haystaa B+ ka haystaa cost of living maciishada waxay ka haysataa B-, outdoor activities meelaha carruurta ku ciyaaraan waxay ka haysataa A-, crime-ka waxay ka haysataa safety waxay ka haysataa C+, wax loo yaqaan nightlife A- ka haysataa diversity-ga oo isdhaxalgalka ah waxay ka haysataa A-, weather-ka waa iska maanasoora degannahay waa C+, health and fitness meelaha gym-ka u dhow waxay ka haysataa A-, iyo driving distance-ka meelaha gaariga haddaa qaato aad rabto waxay ka haysataa A-, highway fara badan baa ku dhagan population-ka xaafadan waa 36,286 ta arkayso waa 36,000 baa ku nool guryaha haddaan ka hadalno average sales price-ka guryaha lagu kala iibsanayo so saa arkaysaan 2025 waa 377,414 waaye ilaa kadib dib u laabato 2024 aado guryaha an average sale price waxay marayeen 345,658 uga la soo guriga raadinaysa ku xirnaa raadinaysa guri this an average way like guriga raadinaysa 5 bedroom oo xoogaa cusub raadinaysa most likely 500 plus noqon doona so dadka kireysanayo waa 32 dadka guryaha iskale waa 68% way so guryaha kirada waxa lagu kireystan ku sheegaya this area hadaa rabto guri studio inaad kireysto maanta waxa ku kireysanaysaa 1098 iyo inta u dhaxaysa 1300 bay u dhaxaysaa haddaan raadinayso guriga one bedroom haddaan raadinayso ilaa waxaa ku kiraysan kartaa 1200 ilaa 1295 baa ku kiraysanaysaa haddaan raadinayso guri 2 qol raadinayso waxaa ku kiraysanaysaa 1475 ilaa 1550 haddaan raadinayso guri 3 qolna ku kiraysato xaafadan waxaa ku kiraysan kartaa 1747 iyo ilaa 1877 haddaan raadinayso guri 4 qol raadinayso waa 2000 ilaa 600 ilaa 3000 bay u dhaxaysaa so haddaan ka hadalno guryaha suuqa soo galay xaafadan waa 514 guryaha soo gashay oo 2025 haddaan ku jirno June guryaha last year u laabatan waxay ahayd 526 last year waxaa ka badnaa 2 guri haddaan ka hadalno guryaha suuqa intay ku daahayaan guryaha waxay ku jireen 14 casho just like 2 weeks ay ku jirayaan last year saasoo kale ahaayeen guryaha suuqa kuma daahayaan haddaan ka hadalno wax loo yaqaan showing per listing guriga inta jeer oo la arkay inta la iibsan ka hor saa arkaysan hadda 2025 waa 6.9 oo iska 7 jeer oo kale 7 jeer baa la arkaya gurigi waa la iibsanaya hadda last year dib u laabato 7.8 sidee jeer bay ahayd hal mar bay dheereed haddaan ka hadalno guryaha pendingka guryaha inspection mar hadda suuqa ka baxayo waa 410 2025 hadda dib u laabatana last year 416 ahayd waxay isdheerihiin 6 houses isdheerihiin haddaan ka hadalno medium price by square footage guryaha inta lagu dhufanayo 195 kugu dhufanayaan hadda 2025 hadda dib u laabatana oo last year waxay kugu dhufanayaan 189 haddaan ka hadalno guryaha la close gareeyay hadda waa 419 oo June 2025 hadda last year dib u laabatana waa 430 last year ka badneed haddaan ka hadalno wax loo yaqaan list to sale ratio guriga qiimaha lagu soo galiyay iyo qiimaha lagu iibsaday waa kala labo so laba guri waan soo qaadanaysaa dhowr guri waan ku tusay laakiin guryaha waxaan soo qaadanay lambarada adaa aragto shashada ka arkaysa waxaan dhan number 54 da soo qaadanay gurigaas waxaa lagu soo galiyay 525 waxaana lagu iibsaday 490 so guriga qiimihii lagu soo galiyay laguma iibsanin so that means like 93% oo wax loo yaqaan list to sale ratio baa lagu soo galiyay so gurigaasina wuxuu ahaa 4 bedroom oo 4 bathroom wuxuuna square footage-kiisa 3010 square footage waxaana la dhisay gurigan 1979 guri kale aan soo qaadanay waa number 57 nambarada uma soo wada qaadan karno
waxaa lagu soo geliyey 525 lagu soo geliyey waxaana lagu iibsaday 575 lagu iibsaday so taas waxay tahay waa 109% waaye had markaan ka hadlayno waxyaasha loo yaqaan list to sold ratio ka hadlayno so 9% ayuu kor u kacay gurigaasina waxaana lagu daray almost $50,000 over asking price guriga qiimaha ay ku raadinayeen lacag ka badan 50,000 oo dheeraada ayaa bay ku dareen gurigaas wuxuuna ahaa 4 bedroom ahaa wuxuuna ahaa 5 bathroom ahaa square footage-kiisu kale uu ka weynaa oo kan wuxuu ahaa 3634 ahaa gurigan uun ka cusbaa waxaa la dhisay 1996 haddaan ka soconno iskuuladan ka hadalno iskuuladan usually iskuulka district waxaa loo yaqaana district 623 aa loo yaqaanaa laakiin haddaan ka hadalno in general aan analyze garana badanaa iskuuladan ka hadalnaa qof walbaa google garayn kara waxaas iskuulada ay dhigtaan laakiin haddaan overall ka hadalno xaafadan iskuuladeeda waxaa la siiyey A- la siiyey the reason aan loo siiyey waxaa loo yaqaana academics aa jira baa loo siiyey P- la siiyey macallimiinta oo teacherska waxaa la siiyey A- waxaa loo yaqaana club activities meelaha ay sports meelahaas oo kale waxaa laga siiyey B laga siiyey waxyaalaasha ilmaha ay qabtaan waaye sportskana waa kubadaha hadday ciyaarayaan iyo soccer whatever ay ciyaarayaan ama basketball waxay ciyaarayaan B- ay ka haystaan waa resources iyo facilities waxyaalayaashan caruurta qaar u baahan yihiin in la caawiyo caruurta qaar waxay caruurta kan ay ka dambeeyaan so in la caawiyo u baahan yihiin caruurta specs hadday qabaan oo kale autism down syndrome waxyaalaasha hadday qabaan in caruurta kale isku mid ma noqonayaan so in la caawiyo noqon caruurtaasi so resources kale waxay ku haystaan B-. diversity tan ka hadalna isxaqalgalka waxay ka haystaa A+ ka haystaa haddaan ka hadalna college prep-ka caruurta loo diyaarinayo collegeyada loo diyaarinayo waxay ka haystaa A-. had administration ahaan oo maamulka waxay ka haystaa B ka haystaa cuntadooda baa xagga C ka haysataa haddaan ka hadalno amenities waa waxyaalayaashan oo shopping mallkii meelaha waaye so waxay leedahay meel loo yaqaano Central Park oo ilmaha ay ku ciyaaraan meel sports field waaye waxaa kaloo leedahay wax loo yaqaano Harriet oo Nature Center oo ah meel kale aydan waxay leedahay ilmaha ay ku ciyaaraan aydan was it's like more like Central Park oo kale waaye waxay leedahay meel loo yaqaano Zero Home Golf Course waaye tan meel golf course ay leedahay oo waa private isagoo private jira iyo meel community eventna way leedahay waxaa kaloo leedahay meel loo yaqaano Roseville skating oo ilmaha ay ku ciyaaraan waxaa kaloo ku yaala shopping and dining haddaa u baahan tahay waxaa ku yaala mallka ugu weyn mallka oo Manasoro ku yaala Rosedale almost wuxuu leeyahay 160 stores ku yaala that literally Rosedale Center baa ku yaala haddaa rabto entertainment everything wax walba u baahan tahay waa ka heli kartaa so haddaan ka hadalno shaqooyinka xaafadan usually sa la socotaan every way waxay u jirtaa 2-minute drive dadka qaar remote jobs ka shaqeeyaan dadka professional jobs ka shaqeeyaan dadka qaar waxay ka shaqeeyaan Target Walmart everything shaqo walba laga qabanayo literally everything waa ka helaysaa so haddii aan ka hadalno highwayda maro oo ku fududeena shaqooyinka saa waado like 20-minute drive 15-minute drive qorab may noqoto highway fara badan maraa oo kamid yahay highway 35 ka mid ah highway 36 ka mid ah highway 35E ka mid ah highway 280 ka mid ah haddii deganta Snelling Avenue wadada highway 51 ka maraa all of them way maraan so xaafadan overall haddaa analyze gareeyey waxaan siinayaa A- still A+ ma siin karo A- aan siinaya laakiin xaafad haddaa rabto maanta gurina ka iibsato adiga qoyskiina maasha Allah waa xaafad aad u fiican waay so crime rate-keeda wuu hooseeya everything wuu hooseeya so adiga qoyskiina haddaa guri ka iibsataan definitely waan uga talinayaa laakiin haddaa rabto inaad gurigaada iska sigado guri cusub inaad iibsato as always waxaa ka saqon kartaa website-kika sahanrealty.com insha Allah nagu soo biiri programkeena aan launch gareynay dadkaan kaga caawin gurigoodana ku bixiyaan 5 to 7 years oo loo yaqaano faster mortgage freedom insha Allah nagu soo booqo waxaan qaban doonaa webinar June 26 at 7 p.m. ayaan qaban doonaa insha Allah nagu soo biiri no soo follow gare video noocan kala soo aragto wa salaamiya assalamu alaykum